muuqaalkan waxaan kaga hadalnay qaabka jinku dhulka u fasahaadiyay iyo soo kale qaabka ibliis uu ahaa jin wanaagsan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala karaameeyay oo malaa'igta keenay iyo abuuristii nabi aadam calayhi salaam oo ibliis markii lagu amray inuu nabi aadam u sujuudo oo ibliis diiday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caasiyay muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlaynaa nabi aadam calayhi salaam noloshiisii jannada qaabkii Xawaa loo abuuray gabadha ugu quruxda badneed adduunka iyo sidoo kale qisada Haabiil iyo Qaabiil muuqaalkan markaas aynu bilaabano diyaaraha sida hore uga soo hadalnay nabi aadam calayhi salaam jannada ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala geeyaa ibliisna uu ka soo saaraa ilaahayna nabi aadam wuxuu baray cilmi aad u ballaaran oo ahaa magacaanta inuu wax walba u arko magaciisa sheegi karo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها إلهي سبحانه وتعالى مقعان توحبر وحوالبا وآدم ماركو ملايكته لكن ما يقولين مقع وحوالبا أركان وانا علم الله سبحانه وتعالى نبي آدم سي لقد عربية أيانا لقد ملايكته أي نبي آدم بكو هالدين وانا لقد وجوه الرئيسي وانا لقد مالك قيامة لو هالدونه لقد إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كودورتي إلهي أيانا كرامي لقد مالين ما كمدا ayaa nabi aadam calayhi salaam isku hurda ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala feediisa ka abuuray makhluuq kale Xawaa ayuu ka abuuray nabi aadam calayhi salaam markuu soo kacay uu arkay makhluuqan quruxda badan leh uu yaabay waxaanu ku dhahay yaa tahay nabi ibraahim calayhi salaam xaaskiisii Saara ayaa maray ka sheekaysay qisadan Xawaa ay leedahay Xawaa waxay ahayd gabadhii ugu quruxda badneed ee dunida soo marta Saara laftirkeeda iyada ayaana ku xigto ahayd gabadhii labaad ugu quruxda badneed waxaana la sheegaaba Saara iyadoo gabadhooda oo 7 marasin wali hadana qurux badneed nabi aadam calayhi salaam markaa wuxuu ku dhahay yaa tahay markaas Xawaa ugu jawaabtay imraa gabadh ayaan ahay maxaa lagu abuuray ayuu nabi aadam ku dhahay markaas ay tirsiyan wehelku ugu noqdo nabi aadam calayhi salaam wuxuu ahaa makhluuq kaliya ee kaliya makhluuqaadka kale dhamaantood waxay lahaayeen makhluuq kale iyaga u eg oo wehel noqdo laakiin nabi aadam calayhi salaam kaliya ayuu ahaa sadarteed ayaa Xawaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu abuuray xiriirkooda daahirka ee jacaylkooduna wuxuu ka soo bilowday jannada dhexdooda malaa'igtii ayaa iyaguna arkay makhluuqan cusub magaciisa ma garanayaan dabcan makhluuqan cusub ay arkeen kadib ay aadam u tageen si uu soo imtixaamaan maadaama Ilaahay magacaanta wax walba baray aadam markuu yimaadeen ay ku dhaheen aadam makhluuqan cusub waayo markaasuu ku yiri waa gabadh markaasuu ku dhaadeen magaceed Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa markaa uu waxyooday nabi aadam oo ku yiri Xawaa markaasuu nabi aadamna malaa'igta ugu jawaabay waxa la raada Xawaa malaa'igta hadana su'aal kale ay weydiisay waxa ku tiri maxaa Xawaa lagu bixiyay markaasuu nabi aadam calayhi salaam ugu jawaabay sababtoo waxa laga abuuray wax nool aadam iyo Xawaa calayhi salaam muddo badan ay ku noolaayeen jannada shaytaankuna intaas oo dhan wuxuu isku dayay inuu jannada soo galo oo aadam iyo Xawaa waswaasiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sheegay aadam iyo Xawaa inuu shaytaankina cadowgooda yahay uuna rabo inuu jannada ka saaro oo waswaasiyo marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aadam iyo Xawaa wuxuu ku yiri jannada wax walba aad rabtaan ka cuna hal geed mooyee hal geed bas marka laga reebo jannada sida doontaan ka yeela waxa doontaan ka cuna shaytaanku markuu soo galay aadam iyo Xawaa wuxuu ku dhahay Ilaahay wuxuu idinku diiday geedkan si aanidan malaa'igu noqon oo aanidan weligiin u dhimanin oo qofkii cuna geedkan malaa'igta ay ka mid noqonaya weligiina dhiman maayo nabi aadam iyo Xawaa way ka diiday shaytaanka waxaanu ku hadlay laakiin wuu dhaartay waqasamahuma anni lakuma la min an-nasihin wuu dhaartay waxaanu ku dhahay run ayaan sheegaya aadam iyo Xawaa ismaail ahaan makhluuq ayaa dunidan ku nool been ku dhaaranaya ama intuu dhaarto been sheegaya Xawaa ayaa markaa geedkii soo goosatay midhihiisina cuntay waxba ma dhicin markaas bilowday nabi aadam u dhiibto nabi aadamna uu qaatay isaguna uu cunay markuu sida uu cunay waxa dhacay wax ajiiba oo aan hore u arag labadooduba waxa bilaabantay markii hore nabi aadam iyo Xawaa dhar ay xidhnaan jireen jannada dhexdooda dharka nooca doonaan ha ahaado way xidhnaan jireen laakiin markan dharkii ayaa baabay oo ka dhacay markii ugu horeysay cawradooda isku muuqatana way ahayd wayna xishoodaan dabcan insaankana markiisa hore ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku abuuray xishoodka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay falamma daaqa shajarata badat lahuma sawatuhuma way kala xishoodaan aadam iyo Xawaa markaas bilaabeen inay geedashii jannada dhexdooda ku yaala caleentooda soo goostaan oo isku asturaan nabi aadam calayhi salaam markaa uu baxsaday uu cararay kadib Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku yiri aadam ma nadiga baxsanaysaa
markaasuu ugu jawaabay ilaahayow waxaan ka xishooday anigoo inaad aragto anigoo qaawan ku caasiyeyna aadam iyo xawa markaa waxay bilaabeen inay ilaahay subxaana watacaala u toobad keenaan shaytaanku isagu wuu kibray oo muu toobad keenin wuxuu sameeyey ilaahayna dembi dhaaf ma weydiisan laakiin aadam iyo xawa marka ilaahay subxaana watacaala caasiyeen ilaahay ay توبد ويديستم حالة دهان ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إله سبحانه وتعالى أنه كتوبت كان من عذاب لكن وعقابي ودولك أيسودتشي آدم يا حواء يا شيطان كبا دولك أيسودتشي وحنا بلابنتي مرحلة دي دولك ملايكو سوك اللي دقين آدم يا حواء ولا سكو خلافة لكن وحا أبضا inay xawo kusoo degtay meel judda la yiraahdo Sacuudiga ku taala xagga aadam kusoo degay calayhi salaam Hindiya waxa markaa bilaabantay in israadiyaan aadam iyo xawo calayhi salaam kadib ay ku kulmaan buurta Carafaat la yiraahdo shaytaanki isaguna soo kale dhulka ay loo soo dejiyay si uu sii wado isaguna mashruuciisa ahaa inuu binaadamka waswaasiyo nolol cusub ayana dhulka ka bilaabantay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aadam markii hore wuxuu soo baray أساسيات كنولشة سيد النجار نماذو كلا يحرف ضبانو كلا أو أساسيات كنولشة إلهي سبحانه وتعالى أنا حاوية آدم حكوار ساقي عروف ربضان وحانا عرضها قابيل يوم متانتيسا حاولنا حدا اللي سي مر والبا متانا ويل يا جبر متانا ويل يا جبر متانا صدرت واحد نقدن لباتن ويل يا لباتن قبلوت نبي آدم عليه السلام نحن ولا مدة كدو كون سنة عيال كيسن وحول بايو بري ونوغش كي عودتما شيطان كو قبو بنيادمك marka binaadamtinimadu xadaarada ay ku bilaabantay ee ma sida qaar sheegan inaan binaadamku markii hore daanyar ayo waxa muu garneenin mareer dunida ka xidhan jiray ma binaadamtinimadu xadaarad ay ku bilaabatay nabi aadam calayhi salaam markaas uu fircaman binaadamku sharci soo dejiyay nin walba inaanu mataantiisa guursan karin walaashiisa la dhalatay mataan tahayd laakiin uu guursan kala mataan kale marka qaabil waxa la amray inuu guursado haabiil walaashiis haabiil mataantiisa inuu guursado ayaa la amray qaabil laakiin uu diiday sababtoo qaabil gabadha la dhalatay ayaa qurux badneed haabiil gabadha la dhalatayna caadi ay iska ahayd marka qaabil wuxuu dhahay waxaan guursanay anigu mataanta aniga la dhalatay nabi aadam calayhi salaam uu ka diiday quraanku sidoo noo sheegay qaabil wuxuu bilaabay inuu haabiil ugu hanjabo inuu dili doono laakiin haabiil oo ahaa nin taqiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baqa wuxuu ugu jawaabay laga yaabo inuu gacan ku qaado sababtoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan ka baqayaa uuna ka waaniyay inuu dilkaas iyo falka xun ee shaytaanku ku kalifay uu ka joogo qaabil maalimaha kamid haabiil oo iska hurdo oo iska jiifa ayaa qaabil dulimid kadib dhagax weyn intuu qaaday ayuu madaxa kaga dhuftay waana dilkii ugu horeeyay ابن كوجيستان أما بناء تماذا كذا عمر كأكور عد ما تمتشرين أما دل جيست تمتشرين قابل مركو كقوم ما يوحنا السماء يدي الكولال كيسن هابيل كدي باي ولال كين تقاضي أوتون كسارتي أو لو وريق صوبته ما قرنا ما يلوكيو قبل أصلا ما قرنا صوبته عد كلمة ولي ما ترتني بعدين يحاول نولين عروت ونولين مركا قابو أصلا يقرن واي الله سبحانه وتعالى يوصدري لبدتك يا زدلي كدي mid ayaa la dilay tukii kale waxa dilay ayaantu dhulka qoday aasay tukii kale dhintay haabil uu arkay qaabil baan niraano uu arkay qaabil labadii tukii dilay markaas ayuu dhahay yaa weylata cajistu ana kuna mithla hada alghurab fawaris wa taakhi miyan ka caasinan sida tukaan oo kale walaalkii uu aaso ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa baraya sida wax loo aaso oo labada tukoo soo daray قابل مركا وكحشوضي إنه آدم كن نقضه أبيه آدم إنه كن نقضه كحشوضي وحب لا مركا إنه حاس كيسي عيال كيسي إنتو كحيستو نبي آدم عليه السلام يعرضي سبورة كن ولاين قابلنا بوريس كيسو دادقو وهوستي مادو حقاسنا بناء المدي كوكالا قيب سنتو مركي هو الرئيسي نبي آدم عليه السلام وحب لا بشرعيه إن آن قابل لنا معامل كريم يدر يديسا سي آن وقفا في الحمان تاسي inta kale walaalihiisaha ciqaabahaana uu uga dhigay qaabil marka caruurtu dhalo dumarku way qurux badnaayeen xagga raggu iska normal ahaayeen xagga dhinaca kale kuwa buurta saaran ee nabi aadam dhex joogo ay raggu qurux badnaayeen dumarkuna iska normal ahaayeen cagsiga ayayna ahaayeen labadooduba maalimaha kamid ayaa marka ibliis damcay inuu fasahaad ka dhex bilaabo kuwii buurta saarnaa laakiin nabi aadam calayhi salaam ayaa joogay uuna u diiday ibliis inuu waxaasoo kale bilaabo لكن إبليس وحب لعبين وكوي هوست تشوقي قابيل كوا فساد كل حب لعبه وحن يسكسوا كيسين ما رعرة وعادي يسكسوا دقيق كدب أيو قابيل عيال كيسين متكمل أرجو الراعي تري
maalin maalmaha kamid shaytaanku isagoo adhigii raacaya ayaa wuxuu sameeyey aalad yar oo muusigeeda oo la tumo waana aaladii ugu horeysay qaabil ciyaalkiisii ama kuwii ka farcamay qaabil markay maqleen muusigeedan ama codkan macaan way ku soo yaaceen ilmihii yaraa waana shaytaanka laftarkiisii kadib ay inta garab yimaadeen heesa bilaabeen iyo inay jaasaan kuwii buurta saarnaa way yaabeen codkan sida kale ay ka soo baxaya hoosta kadib ay sidaan soo eega inta dhaadhaceen laakiin nabi aadam calayhi salaam ay dhex joogay una diiday inay degaan ama u tagaan kuwa hoose maalin maalmaha kamid markaa kuwii hoose joogay ama qaabil kuwii ka farcamay waxay bilaabeen inay samaystaan ciid iyaga u gaara kadib ay intay soo labisteen heesa qaadeen iyo jaas miidhan dumarkii quruxda badnaa qaabil dhalena waxay bilaabeen inay isa soo qurxiyaan kadib ay jaasaan mid kamid kuwii buurta saarnaa faduulinimada binaadamka lagu ogay marka hore mid kamid kuwii buurta saarnaa ayaa intuu soo daadegay hoosta yimid dumarkii quruxda badnaa la jaasay kadib waxaa dhacay zinadii ugu horeysay biniaadamnimada kii hoosta tagay ee la soo ciiday kuwa hoosta jooga wuxuu ku noqday buurtiisii oo u tagay kuwii kale saalixiinta ahaa kadib ay uga sheekeeyay dumar aad u qurux badan hoosta joogaan markaas ay haddana fasahaad kala bilowday nabi aadam calayhi salaam marka waqtigiisii gaadhay waxa uu mid laba nin oo aad u qurux badan labada nin ciyaalkiisu may garanaynin laakiin xaawo way garatay markiiba inay laba malagu rabeen aadam nafta ka qaadan yihiin kadib ay xaawo jacayl u qabto aadam iyo cabsi ay u cabsanayso ku dhigtay laakiin nabi aadam wuxuu ku yidhi noo kale anigiyo malaa'igta rabbigay noo kala bax kadib ay malakul mawt ku yimid oo nabi aadam nafta ka qaaday waxaanu noolaa nabi aadam calayhi salaam 960 sano waxaanu geeriyooday nabi aadam calayhi salaam isagoo jira 960 sano malaa'igta ayaa qaaday meydkii nabi aadam calayhi salaam kadib maydhay kafantay oo aastay oo bartay qaabka wax loo aaso oo tiri markaas waa tan sunnadiinu ilaa maalinka qiyaamaha bini aadamu nabi aadam calayhi salaam intaanu geeriyoonin ka hor wuxuu binaadamnimada hoggaankeeda ku sii wareejiyay wiilkiisii isaguna nabiga noqday ee ahaa shiith ibnu aadam muuqaalkana maanta intaas nuuga yahay qisadii nabi aadam calayhi salaam waxaana rajaynaa inaad wax badan ka baratay fadlan haddaad ku cusubtahay subscribe sarsan noola socoto muuqaalada dambe lana wadaaga asxaabtaada haddaad jeceshay inay arkaan qisadan oo kale wassalaamu calaykum